أهلا بكم داود يا الكسر دوادا ورئيسي أنولي لأني أقويها دكتور عبد الرشيد عبد الله صالح وبدا أقويها كسوت هذا SSC أما صور صناعي عين مدن عبد الرشيد سؤال شو بقول لكم يدينا واحد تاني بعد تشير دوانها لو سوق بقويين magaalada Woolwich dhowr qodobna ay ka soo baxeen tuuleeyo shirkaas oo inta badan warbaahintu sheegaysay qaarkeed in uu kalsooni ka haysto shacabka mandaqadaas iyo ragga waxa ka qaadanayeen inay matalaan arrintan maxaad kala socotaas maxaad shirka dhaqdhaqaaqiisa iyo go'aamihiisa kala socotaa bismillahir rahmanir rahim waa su'aal muhiim caliyo aad baad noo mahadsan tahay shirka Woolwich waan la socday waana maqlayay marka ugu horeysa horta dadkani waa dad ihela oo wili aftigiisa umana baahna sidaan horeba media-ha dhowr goor uga sheegay anigu shakhsiyan in la marin habaabiyo maalin walba shirka Woolwich hadaan soo noqdo 1985 January 1 waxay ahayd maalintii dawladda Soomaaliyeed ugu dambeysay ay u cayintay in ballot boxes ama sanaaduuqda doorashada loo dareero halka waxa yaalay laba sanduuq oo ay ku kala qoran tahay haa buluuga may hurdiga aburintii dadka halkii ay ku haboonaan lahayd in marka hore fikirka dadka la eego aan waxba loogu qorin aburintii dadka iyo tixgelin la'aantii waxa dadweynuhu aaminsan yihiin ama marka shacabku catastrophe iyo dhibaatada ay ka tagtay waa mid marxaatimo doonta shirka Woolwich isaga waxaan leeyahay waa haa buluuga may hurdiga aan hore u sheegay oo kale waqtiga mana aha mid wax macnaa oo buuran ku soo kordhinaya ismariwaagi xagga siyaasadda ahaa ee deegaamada ka taagnaa taa anoo sii xaqiijinayna waxaan ku cadaynayaa 14 isim bay leeyihiin deegaamada SSC-du 14 ka isim hal nin oo ka joogay shirka oo saxiixayaasha kamid ahaa ma jirin saasaan iyada hawsheeda ku gabagabeynay waxaa jiray laba mas'uul oo inta badan iyagu shafka u garacanayay dadkaas inay mas'uul ka yihiin ninkii Sacad Jibriil iyo Cabdirasaaq oo khusuusida Sacad Yuusuf iyo labadan nin iyagu xagga kale haystaan oo dadka ay leeyihiin oo odayaal baan noo nahay waxa weeye anaga mas'uulka nahay horta Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg waa bila sheeg bay ku mahmahdaa ma jecel inaan horta labada oday waa laba nin oo odayaal aan gaar ahaan personal anigu u weeraro ha yeeshee waxaan isleeyahay mar haddii garaadkii beesha oo garaad Abshir Saalax ahaa uu idaacadaha BBC-da iyo kuwa la midka ahaa ka beeniyay inaanu shirka waxna ka ogeyn waxna kala socon Soomaaliduna ay ku maamaado madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto I don't think inay meel la ka haystaan wax kalsooniya wax jiran waana non existence waxaa jira shir la ilaamiyay dhawaanahan in lagu qabanayo maamul goboleedka Portland oo dib u heshiisiin Soomaalida lagu sheegay shirkaan maxaad kala socotaa ma suurtagelay sameeyaa runtii wallahi walaalo cali shirka waan maqmaqlayay oo campaign xoog leh oo loogu jiro waan arkayay horta arrimuhu waa kala horeeyaan dadka reer Puntland shacabkaas oo shacab dimuqraadiya oo xilligii SYS oo waxyaabo badan oo taariikhiya base runtii block dhan ah marka Soomaaliya laga hadlayo fikirkeeda siyaasadeed aad waxaan horta ugu dhaliilayaa waqtigii dhaweyd ee khiyaanada laga waday Kampala heshiiskeedii accord inaan shacabkeedu aanay banaanka ku soo bixin oo Soomaalinimadii lagu yaqiin aanay muujin taasina waa dhaliil aan u dirayo una sheegay inay ka digtoonaadaan wixii hadda ka dambeeya because dad Soomaaliyeed wayna khusaysaa waxa Soomaaliya ka jira taa marka aan ka gudbo waxaan u malaynayaa waan oran lahaa horta maamulka president Faroole shirka dib u heshiisiinta ee Soomaaliyeed ee ka dhacay Puntland iyo Garowe ma aha ciyaarihii gobolada ee hore uga dhacay ee maaragtay ahaa arrimaha bulshada ee maaragtay sida sahlan u dhacay waxa weeye waa arrin very sophisticated tani oo u baahan waynu ognahay MB-yada ha noqoto ganacsatada waaweyn habeenaan qof lagu dilin ma jirto deegaamada Puntland waxaan leenahay iyaga laftoodii dadkii dawladda metelay ama maamulkaasi baan haysan ammaan buuxa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo meel walba ka timi marka ay imanayso waxay u baahan yihiin security full ah oo maaragtay ammaankooda iyo waxooda damaanad qaaday I don't think marka ra'yigayga inay ka bixi karto hawsha maamulka maanta jira dadweynuhu ما دليل يجا ودوينك أنت عم تقول لي مركب رمويان
laakiin maamulka maanta jira oo internal democracy aanay ka jirin oo anigu aan ogahay oo aan u dhuun daroolo I don't think inuu hawsha ka bixi karay mana aha ciyaarihii gobollada oo kale waxaa jirtay bari dhaweyd odayaal dhulbahanta oo meesha SSC inay xabashiga u tageen oo ku yidhi ama Puntland ama Somaliland midun ku biira meesha dhaxaad istaagaysaan darasa suurtagal maaha shacbiga laba saddex gobol Soomaaliya sanad yacan كيف تقول تطلع بدل السومال أنا يعني استقبل عن كل هتبي تقول يعني والله ولا رأي جيجا بنتلان إيه سوماليلان إيو قوني ذو أو أي سوتاجان أو إيو أنا لبضا بدنا كتير سنان وحن أنا وكرات لين لها بل مركا أوه الرئيس إني هرت إيو مدوبان أو وضع هضان مركا أي وضع هضان موقف مدأ أو أي كم مديسين هنا أما أن اسم كذا هضلين أما أن سياسي كذا هضلين inay isugu bayraan meeshii iyagu doonayaan oo markaa taladu ay noqoto dhawaanna waxaan ku sheegayaa shirkii ka dhacay London shir la yiraahdo khaatimo oo dhawaan la filayo inuu gudaha deegaamada SSC-da ka dhaco waxaan ilaahay ka baryayaa oo aan rajaynayaa sida qiyaastu ay tahay in guulo fara badan oo midnimo ay ka soo baxaan go'aankoodii guudna ay ku qaataan iyo aayahooda sida iyagu yeeri lahayn oo ku tashanayaan wallahi walaalow annagu haddaanu dadka deegaanka nahay nimanka odayaal dhalasho ahaan ka soo jeeda weeyihiin deegaanka ha yeeshee ma aha dad haysta maaragtay legitimate oo kalsoonida shacabka haysta deegaamadayada annagu aan deganahayna wax looga yaqaana inay niman hawkaris yihiin oo dilaalin oo kale waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo Ingiriisda hawkariska oo just qofku constituency marka uu matalayo seejo ama uu ummad matalayo dantiisa gaarka ama tiisa dhaqaale waxa ka horeysa dadka waxaana kugu tusaya Excellency Ahmed Abdi Xaabsade oo kale maruu yimi iyo wafdi uu hogaaminayay oo la socday wasiirka ganacsiga Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed Dawdar waxa weeye way joogeen laascaanood muddo bil iyo barka waa niman odayaal oo constituency ama seeshada ay ka soo jeedeen waa laascaanood waxa loo baahnaa marka ay yimaadeen iyagu ninkii gurigii xanuun ka jiro iyo kii baahi ka jirto iyo kii dal isqabtaanba bakooradooda iyo go'ashaalkooda iyagoo wata inay u tagaan oo ay soo salaamaan oo dul tagaan ilaalana aan wadan kalsoonida dadka inaanay haysan waxa ku muujinaysa oo ay tahay wax aad u liita actionka meesha ka dhacay dad boqol taangi baa ilaalinaysay oo ay ku ilaalinayeen inamadii ama dadkii ay iyagu ku martigelin lahayn magaalada ayaa waxay noqotay inay taangiyada ku ilaaliyaan iyaga oo ay ka ilaaliyaan dadkii ay iyagu ku guriyooda u tagi lahayn intaas aniga ku soo jeediyay waxaad shacbigaas weynahaas daliil gudaba jooga ودنبنتي maxaad kula talinaysaa cali oo su'aal aad u wanaagsan walaal dadkaasi horta waxa haya waa lack of leadership waxa Ingiriista lagu yiraahdo hogaamiye macnale ama hogaan macnale oo isu ururiya iyaga ama si codkooda mideeya ayaan jirin horta oo aan macna badan inta hadda kulli roolka ku jirta I don't think inay capable u yihiin ama awood u leeyihiin hawsha garan iyaga marka waxaan oran lahaa war shacbi oo midooba oo xilli adag oo maaragtay transitional oo kala guura baa lagu jiray waxaad samaysaan tashada oo midnimadiinu mid ha noqoto taa waxaan daba dhigayaa cali oo aan u sheegi lahaa waxa xoogaa dhaliili iiga muuqataa deegaamada tan SSC 14keedii isim dibadda ayay exile ugu maqan yihiin waxaan aaminsanahay aniga maamul horta waxa ka sareeya waxa weeye waa isimka dhaqanka sababtoo ah maamul waa yimaadaa waana tagaa laakiin isim dhaqan ma tagay waa dhintaa kadibna waa la dhaxlaa ama walaalkii ha dhaxlo ama aabihii ha dhaxlo waxa weeye isimadii dhaqanku war miyaanay idiin habboonayn baa qaalidiin diraya uu yahay intiina kale war 14kii isimee deegaankan joogay dunida taariikhba isqoraysay in ay ka daba tagaan oo ay la xaajeystaan isimadii kale si ummaddu say isu dhexmari karta ay isu dhexmarto Soomaalidu waxay ku mahmaahdaan inna eedaan lahayn ma qaado waxaan ogahay hadda Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir oo kamid ah isimada ugu dhaqanka kuwa ugu cimriga dheer ee Soomaaliland deegaamada la yiraahdo ka jira in badan baan anigu shakhsiyan ogahay inuu isku dayo sidii wax loo maarin jiray wax u maareeyo ha yeeshee looga xoog roonaaday midda kale ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri oo tilka ayaamu nudaawiluha bayna annaas ilaahay ayaamaha dadku ku dhex wareejiya nin shalay madax ahaa maanta maaha ka maanta ayna bari ahaan maayo marka anigu waxaan ku talin lahaa dhinac walba war tala cuqubo waliba maamulka Soomaaliland kula talin lahaa war tala cuqubo yaan laga tagin oo kullay inta anigu hadda aanba ugu ragayga ah iyo kuwa igu xigaaba generationadaasi xilliga cimrigoodu waa iska dhow yahay jiilasha dambe ee soo socdayaan cilib xun oo dadkaas ehelka ay ku kala tagaan aan laga shaqaynin maalin walbana aan lagu wareegin saddex wiil oo meel isbaara ku haystay oo la yiraahdo maaragtay waa la heshiinaya inta gawaari badan lagu soo dhaweeyo shafka la saaro
iyadoo aynu ognahay somaliland hadda oo kale waxay leeyihiin qabiilka ma jeclaan afka ku dhuftay waxay leeyihiin goro guurti oo marka xaajadu adkaato oo kale dib loogu noqdo oo reference ah war maxaa annaga 14-yaga isim iyo cuqaasho diiday ilaa weynuba isla qaal weliga is dhaqan qiimi maxaa u diiday in iyagu karaamadii ay lahaayeen la siiyo maalinba inta qof laga hortegayo 900 kilomitir bulshada dantiisa u socdo hawkar ah waxaan leeyahay arrimaha laga fiirsado baaqay wada waacaynka waa intaasaan ku dhameeyo